kabacdi annagu waxaanu nahay dadkii ka yimi magaalada jaamac dubad ee dhibaatadu ka dhacday haddii ay ka dhacdayna waxaa nagu dhacay dhibaato aad iyo aad u xoog leh mid yacni waxaan kugu iri aad u culus ayaa nagu dhacday waxaa nagu dhacay markaa xasuuq iyo dhibaato ay noo geysatay dawladii markaa waxaanu annaga oo maanta nagu dhacay in la laayay oo xasuuq xoog leh oo dhibaato oo yacni layna oo biraysa oo xoolo laaya oo nooc walba leh ay nagu dhacday markaa annagu waanu ka soo badbaadnay markii aanu ka soo badbaadnayna imika waxaanu soo galay soonahan hadda annagoo dhowra ayaanu soo galay meelahan haddii aanu soo gallayna anigu qoys baan ahaayo meel baan aalay haddii aan aalayna dee yacnihii casarkii markay ahayd salaada casar intaan la gaadhin ayaa dhibaata meeshii ka dhacday ciidamo ayaa yimi ciidamadiina markii ay yimaadeen waxay sameeyeen inay yacnihii magaaladii u feeraariyaan rasaas xoog leh ay ku ridaan markaanu aragnay markaa dadkii oo daatay oo qaybi dhimatay ayaanu dee qof waliba yidhi nafta aan la cararo markii aanu cararayna dadkii lagama hadhine waa nala eryaday dhib markaa xoog leh ayaa meeshaa ka dhacday dad xoog lehna wuu ku dhintay dee dhibaatada ayaanu anagu imika ka guryanimi oo aanu ka soo gaadhnay halkan tira ahaan waxaa dhintay 24 qof dadka haa waan ku noqonay markii dambe ee aan anagu yaacnay haddana la soo noqday ee dadka la aasayay waan ku noqonay caruuriyo waxbaan weynay markaa waan ku noqono waxaan sidii meesha soo eego waan ku soo dhiiray markaa meydadkii iyo wixii markii la aasayay la qaadqaadiyay waan joognay